عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دhow kororsa aqoon channel maanta cashirkeenu waxa weeyaan waa 10 essential English words waa 10 kelmadood ee lagama maarmaanka ah ee Englishka 10 kelmadood ee aan maanta kusoo gudbinayo waa 10 kelmadood oo aad muhiim u ah oo aan ku soo xulay marka daawasho wanaagsan aan bilowno number 1 experiment tijaabo waa tijaabo. An experiment is a task that you do to see what will happen. Experiment waxa weeyaan waa tijaabadu is a test waa tijaabo that you do taasoo aad u samayso to see si aad u aragto what will happen waxa dhici doona markaad shay tijaabinayso waxa aad eegaysaa waxa dhici doona uu shaygan sidoo noqon doono markaad tijaabada wax kala maahay waa test aad u samayso si aad u aragto waxa dhici doona marka an experiment is a test that you do to see what will happen marka tijaabadu is a test waa tijaabo that you do taasoo aad u samayso to see si aad u aragto what will happen waxa dhici doona. Example: the student did an experiment in science class. The student did an experiment in science class. Ardaygu wuxuu sameeyay tijaabo. Ardaygu wuxuu tijaabo ku dhex sameeyay fasalkii science-ka. The student ardaygu did an experiment wuxuu ku sameeyay tijaabo in a science class fasalka science-ka dhexdiisa. Kill waa dilid waa in shay la dilo ama qof la dilo dilid. Kill to kill someone or something is to make them die. To kill someone inaad disho qof or something ama shay is to make them inaad iyaga ka dhigto die kuwa dhintay marka qofka la dilaya oo kale someone waa qof somethingna waa shay shayga la dilaya inuu dhinto laga dhigayaa xayawaan oo kale aad adeegsan kartaa marka to kill someone inaad qof disho or something ama shay is to make them die waa inaad iyaga ka dhigto kuwa dhintay marka killna waa dilid. The cat killed a rat. The cat killed a rat. Bisadii waxay dishay jiir. The cat bisadu killed waxa ay dishay a rat jiir bay dishay. Laugh waa qosol waa qosolka weey. Laugh is a sound made when someone is happy or funny thing occurs. Laugh qosolku is the sound waa dhawaqa ama waa jabaqda made la sameeyo when someone marka qof is happy uu faraxsan yahay or funny thing occurs ama shay lagu qoslo oo funny uu dhaco. Laugh waa qosol is a sound waa laugh qosolku is the sound waa jabaqda made uu sameeyo when someone is happy marka uu qof faraxsan yahay or funny thing occurs ama shay funny oo lagu qoslo uu dhaco. Example: he always laughs when he is happy. He always had iyo jeer isagu laughs uu qoslaa when he is happy marka uu yahay happy uu faraxsan yahay. Loud waxa weeyaan jabaqda sare oo dhawaq sare. Loud if a sound is loud haddii uu jabaqi tahay mid loud oo sare. It is strong waa mid xoogan and very easy to hear oo ay fududahay in la maqlo. Loud marka waa cod sare ama waa jabaq sare ama waa dhawaq sare. Marka if a sound is loud haddii uu yahay jabaqdu ay tahay mid loud ah oo cod sare leh. It is strong waa mid xoogan bay ka dhigan tahay and very easy to hear oo ay fududahay in la maqlo. Example: could you speak a little bit louder? Could you speak a little bit louder? Could you speak ma u hadli kartaa a little bit louder? Sidan si ka yar dhawaq sareeya ama sidan si ka yar codka kor ma u yar dilci kartaa bay ka dhigan tahay ma u hadli kartaa si ka yar cod dheer sidan aad u hadlaso. Could you speak ma u hadli kartaa a little bit louder? Sidan si ka yar cod sareysa. Noise waa iyadna waa dhawaq ayna jeclaysan oo jabaqda waxa weeyaan ayna dhagaha ku jeclaysan. Noise is an unpleasant sound. Noise waxa weeyaan is an unpleasant sound waa jabaq ayna jeclaysanayn. Example: the crying baby made a loud noise. The crying baby ilmihii ooyay made wuxuu sameeyay loud noise dhawaq aad u sareeya jabaq aad u sareysa marka waa shay ayna dhagaha ku jeclaysanayn. Shout waa ku qayliyad. To shout is to say something loudly. To shout inaad qaylido ama lagu qayliyo is to say waa inaad shay u tiraahdo is to say something waa inaad shay u tiraahdo loudly si aad u sareysa oo aad ku dhawaaqdo weeyaan.
My boss shouted at me because I was late for work. My bosskaygii ama ninkii mas-uulkayga ahaa managerkaygii baa shouted at me ayaa aniga igu qayliyey because maxaa yeelay I was late for work waxaan ka habsaamay shaqada waxaan ahaa mid ka habsaamay shaqada marka shoutna waxa weeyaan waa ku qayliyad secret waa sir secret is something that you do not tell other people secret sirtu is something waa shay that you do not tell aanad u sheegin other people dadka kale. The two boys were sharing a secret. The two boys labada inan were sharing a secret waxay wadaagayeen sir. Smell urin weeye smell urin. To smell something means to use your nose to sense it. To smell inaad uriso something shay means micnaheedu waxa weeyaan waa to use waa inaad isticmaasho your nose sankaaga to sense it si aad ugu dareento isaga. The two friends smelled the flower. The two friends smelled the flower. Labadii saaxiib waxay ursadeen ama ay uriyeen ubaxa. Terrible aad u xun. If something is terrible, it is very bad. If something is terrible hadduu shay yahay mid aad u xun, it is very bad. Micnaheedu waxay ka dhigan tahay aad buu xun yahay. Very bad aad buu xun yahay. The way he treated his classmate was terrible. The way habka he treated oo la dhaqmay his classmate ardayga isku klaaska ahaayeen was terrible waxay ahayd hab aad u xun bay ahayd dhaqan aad u xun bay ahayd terrible aad u xun. Shake waa ruxid ama lulid. Shake waa ruxid weeye ama lulid. To shake inaad lusho is to move back and forth waa inaad u dhaqaajiso dib ama hore or up and down ama hoos iyo kor quickly si dhaqso ah. To shake is to move back and forth or up and down quickly. To shake inaad ruuxdo is to move back and forth waa inaad u dhaqaajiso hore iyo gadaal or up and down ama kor iyo hoos quickly si dhaqso ah. Example shake well before use. Shake well before use si wacan ama si fiican u ruux intaanad isticmaalin. Sentence-ka waxa laga yaabaa inaad ku aragto dawooyinka gaar ahaan dawooyinka sharoobooyinka ama liquidka ah waxa ku qoran shake well before use ama perfumeska qaar cadarada qaar intaanad isticmaalin si fiican u ruux. Shake u ruux well si fiican before use intaanad isticmaalin. Casharku maanta halkaa inagu joogo la soo casharada dambe ku xidhno Kororsa Aqoon channel waad ku mahadsantahay daawashadaada. Fadlan ka faa'iiday casharkan share like iyo subscribe ha ilaawin.